kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii Dulmar barnaamijkan waa barnaamijka daawadayaasha qiimaha leh ee Horfadhi Media aan idin ballan qaadnay inaanu idin soo wadno isla markaana waxa barnaamijkan markii ugu horeysay nasiib u yeeshay nin ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed waa arag Soomaaliyeed taariikhyahan isla markaana 50 sanadood muddo gaadhaysa qurbaha joogay waxa barnaamijkan inoogu martay Axmed Cali Mursal oo kamid ah dadkii soo galay dalalka qarbiga ama dalalka reer galbeedka isagoo ah badmaax sidoo kale taariikhyahan siyaasadda xitaa wax ka og sidoo kalena taariikhda dalka Mareykanka tiisi sheekooyin yaab leh iyo wacaalo aad ugu bogi doontaan barnaamijka Dulmar ala waxaan ugu talagalay inaynu kolba aynu ku casuuno isla markaana aynu runtii aynu ku qaadaan kuna eegno dad yoga hibada leh iyo dadka markaas taariikhdu ku dugan tahay dadka sheekooyinka la yaab kale ee dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo iyaga naftoodaba gaaray waxa sidoo kale daawadayaasha qiimaha leh barnaamijka Dulmar way araga maanta nasiibka u yeeshay in lagu daafro u noqday Axmed Cali Mursal ku soo dhawo barnaamijka Horfadhi Media ee Dulmar barnaamijkan dabcan waxa aad ugu faraxsanahay inaad noqoto qofkii ugu horeeyay barnaamijkan ku daafurno sidoo kalena waxaan aad kaaga mahad celinaynaa hospitality-gaaga iyo saad noo soo dhaweysay iyo waliba sida gurigaaga noogu soo dhaweysay iyo sheekooyinkii qosolka iyo taariikhda labadaba laha ina dhaxmaray kolka Axmed waxaan jeclahay horta inaad sheegto barnoo sheegto taariikhdaada adoo ku celinaya bal magaalo galkaaga iyo kursimaadaadii hore iyo sidaad bal arintaas daawadayaasha waa dhawahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سلمان وآد بان كوما تنقياه و برنامج كاغينا كغيب قلو يدو لاس year and half aanan usan midna dhaafin oo dadka dhalinyarada media aad ninka ugu horeeya tahay ama ugu wanaagsan dadka Soomaalida marka taasaan nasiib u yeeshay inaan ku arko oo kala qayb galo barnaamijka aad wadid adiga iyo ninka kula shaqeeyo la yiraahdo engineer Yaasiin iyo kooxda kula shaqeeya dadkana had iyo jeer waan u sheegay war borogada ma daawataan war Salmaan ma daawataan war Horfadhi ma daawataan waa aad iyo aad baan u jecelahay inaan borogada kala qayb galo aniga waxa la yiraahdaa Axmed Cali Maxamed anigu waxaan ku dhashay taariikhdu markay afartankii meelaha lagu qiyaasay 1940kii meel ya dan gudban oo bariga Laascaanood gobolka Sool bariga meesha waxaan ahaa reer baadiye xoolo dhaqato waxaan gaaray cumrigaygu markaa wuxuu ahaa 17 meelahaas marka intaan 17 gaarin baan geelina waxaan baranayaa reerka waa ka tagayado adigu sanad baa la celinayo aakhirkii geel baa la iibsho dhaaf baa la yiri waa garta marka waxa la yiri halkan ninka Yurub ka faa'iido badan dhulka ku jiigsanay xamar iyo dhulkaas halkaas ana waxaan mar hadii la dirayo meesh la dirayo ku baxsan waata marka halkaas aan ka dhoofay aniga Emmanuel Madeernahay oo isleeg oo labadiiba geel jira ayaan israacnay waana la jismay marka waxa jirtay waqtiga ayada Ingiriiska dagaalkii labaad waa tuu dhalinyaradii ka dhamaatay dagaalkii waa aad ugu naafoobay marka dadkii Commonwealth-ka ahaa oo xukumi jiray dalalkii uu dhalinyaro uga baahnaa u shaqeysa marka qolo walba uu ka qaatay dadkii Ingiriiska xukumay Pakistan India Soomaaliya wadamada West Africa dhulkii Ingiriisku xukumi jiray oo dhan buu uga baahnaa dhalinyaro sax marka saasaan u tagnay baasaboorkana la siiyay baasaboor Soomaali la yiraahdo Somali Protectorate ay ku qoran tahay oo Britishkii Somaliland xagna Britishka xagna Soomaalika oo goodirkeena baa ku sawiran goodirkii aad u joogay goodirkii gasaaqal qoloona waa baasaboorku kaga yaal sax meel kana waxa ka taal kuweenada iyo calaamada Ingiriiska ay kaga taal marka waa Soomaaliya Ingiriis ku jira marka baasaboorkaas aan la siiyay Hargeysa ka baxnay Djibouti baan tagnay Djibouti waan marka ka raacnay France baan geeyay France baan marka tareen ka raacnay oo iyaguna Faransiisku haystaan oo iyaguna
maxamiyadii faransiiska Djibouti markaa ay ku jirto ha laakiin wadan dhisan buu markaa ahaado ma garanaysaa Soomaaliya ka horeeya oo dhaqdhaqaaq ka jira dhismaha iyo maraakiibta iyo maxaan ku raay airport iyo magaalada dhisan bay ahayd dadka yani dadka European-ka iyo Carabaha iyo dadka Soomaalidu meelo islaami ku jirtay meelo yani buur ku jirtay adigu meeshaasaan waxaan sugnay markii 2 asbuuc marka baad ku dhoofaysan marka baan ku dhoofaynaa marka waxaan meesha naga kaxeeyay nin reer Laas Qorayo ahaado dekedaha ka shaqeyn jiray madaxa yaa noo habeeyay maaragtay alaabtii markii kale ku riday aan raacnay waxaan helay marka Soomaalidu meel walba Soomaaliya waa joogtay Ilaahay barakay annagoo leeyahay gaalada kala balama nimankan ilaa waa luma yaan hay wana geelka gaalana nafqoobana ka balabay sax mise afar nin baa markii geesta ka soo raacay oo siimana waaga oo ilbax nimankii ba gacanta nagu dhigay ilaa ay Soomaaliya oo qaar cadan ka yimid oo waliba Soomaalideena reer waqooyiga reer Djibouti aan bay ahay waxaan dhigayeen marka deena bixiyano muqsulaha iyo sida loo cunayo kaanteenka adigu waan sii dhaweeyeen Faras baan tagnay si leeg dooba meel la yiraahdo Faras iyaga loo kala talaabay nageeyeen adigu tareenkii England baan u talawnay marka halkaas aan ka dhulgalay marka dalkii kugu horeeyay ka baxsan dhulka Soomaalida ama dhulka Faransiiska haystay ha noqoto ama kan Britishka haystay ha noqoto marka waxa la oran karaa dalkii kugu horeeyay tagtay Faransiisku markaa maya waxaan soo kinaal suwayso marka Araba oo Masar aan ku deginaan markii soo fuulayado aan dadkii muslimiinta ahaado ba marka kuna la maray kinaal suwayso waata Djibouti kinaal suwayso dabadeedna Faransiis baa magaalada leeyahay Marseille baad ku tagtay yaanu markii nagu dashiyay marka Faransiis halkaas aad ka raacdeen hadana markabkood ka degteen kadibna train baad raacday markabkii baan ka degnay markaas nimankii nawaday waxa noo geeyeen community Soomaaliya oo Marseille degan oo Faransiiska ka dhisan marka sanadkaas waa 8 ka aakhirkiisii ama 9 iyo kontonkii 1990 mid meelaha weeye waa 60 sano muddo ku dhow waata marka kadib Ingiriiska tagteen maxaa dhacay maxaa kala kulantay London baan ka degnay markaan London ka degnay nimanka aan la soconay London bay ku socdaan waaga waa Seaman waa badnaxin London bay ku degayaan waaga annana waxaan ku soconaa magaalada la yiraahdo Cardiff oo iyana bada oo odayaashii aan magacooda hayno gobolka ka yimid ay degan yihiin marka waxa la yiri waryaaheen dhalinyaro annagu halkaan ku degayna marka waa train baan u disaarnaa sax tareenkaas idin geenaya caawo dhan buu sii soconaya bari subax baad Cardiff tegaysaa waaga marka xodo aan shaqeynado marka saale lacagna waa la idinka baahiyay lacagtii aynu ku soo galay halkii ku ekay waa ka dhamaatay lacag ma dhamaanay nooli ticket-ka iyaga kaga soo dhoofnay halkaas ku eegay sax London buu ku eegay marka nooliga kale iska bixi tareenkii waa karta marka way eegno waxaan lacag ma siitaan marka waa sidina waaga laakiin halkii noogu jirta waa qareenaado nima baqayaatiyo magaalada waxaan ku soconay nimide ama lacagtana la ka raba waaga shaki baan galay sax debanaan ka aamin xubnahayna maaha waa ninka soo waday sida wanaagsan idin galay waayahay baan lacag wada hawa wadana tigirkii baan soo gooyay tareenkii baan ku saray marka tareenkii baan ka bilaabay tareenkii nimankii waday baan ka bilaabay nimankii nagu sameeyay waxa yiraahdeen nimankii af ma yaqaanin Cardiff geeya addressna way nasiyeen addresska anaga seena sax halka nimanka ku bilaabay yar dad kale nagu soo bilaabin doonaan Ingiriisku wuxuu ku wanaagsan yahay dalkiisa marka joogtid qof ku dhigay ma lumaysi waa gacan ilaa gacan baad marka markii aad tagteen Britain magaalada Cardiff marka tagteen dalka hadeerta Britain maxaa qabatay school baad gashay ma shaqaad raadsateen adiga ninkii kale aad qaraabada ahaydeen maxaa ninkii kale
waqtiga iyada dhalinyaro badan baa si naga horeysay socotay oo isdaba jooga sida hadda qaxootigu u yimaado markaas sanduuqyaa jiri jiray oo hadda dadka cusub laga siiyo صح way dhamaadeen sanduuqii oo marar maan tagnay cidlaan ku dhacnay weli lacagteedu waa sideena صح marka laakiin si fiican ma loo soo dhaweeyay orientation man la siiyay aad u fiican macnaha tababar warbixin buuxda la siiyay meesha ku saabsan waa meesha la ku baray halkaasna la ku baray sida suurka loo gashado tayga loo xirto waxaan ku ilaahay anga jiifka loo gashado bunqsuudka loo galo maartay libsu maartay la soo geejiyo koofiyadaha dhaxanta weyro bareedadan baa la qaataa si loo gashado waxaan ka dhigay reer Ingiriis صح conservative oo kala waliba qaabka ugu labistaan ugu odayaasha keedi weyn ugu dagaga bilaabay waa garta markii halka ay mareysay baa leeyahay halka shaqo laga ma helay badmaaxna ma tiidin meesha shaqo laga ma helay waana aadaan magaalada leeyahay Sheffield baa warshada iyo shaqada weyra tagtaan marka halkaas nin baan la ku daray oo tareesna na raacay Sheffield baan markaa degnay oo ka bilaabay maaragtay shaqo iyo school iyo maaragtay markii ku gorisay aad badda fuusho ama aad badmaax noqoto inkastoo markii hore aad bad ku timid oo intaas oo wanaay hayde socdaalka ay koobaad laakiin markaad bad u shaqo tagto goorme badda waxaan halkaas ka fuushay waxay ka fuulay anigoo shaqaysta oo school tago ilaahay ma hadii jooga laakiin badda jecel oo odayaashii shaqadoodii haya yani noo soo habeen wuxuu yiri war nimankaas ma ninkii saaxiibka ayaa way hortagay wallo yeeray marka buu ku baqay anigoo shaqaysta ayaa waxay la soo waxa la yiri wariyarkii caranuug baa la bixiyay way dadka markaas tagay ana ugu yaraa marka xireen karo caranuug rag iyo dumar ana ugu yaraa waayta caranuug baa la bixiyay waata xitaa ardayda la dirana waa ka yaraa ardaydu 8 iyo 10 iyo 9 iyo 10 bay ku tagi jireen 20 iyo balay 20 iyo laakiin anigu 17 jir soo galay oo gali jiraa rasi caanab lagu bixiyay midda kale waxa aan lagu bixiyay cunadii kala diiday caanab ma ahaan oo nin geel ka yimid waxaan wax walba waa qaasiir iyo balaayo caano iyo baan ku noolaa middo iyo rooti iyo jam wad ka shakida jamka macaan iyo rootida hilib oo dhan waa ka shakiyay oo waxaas nimankan waxaan la gowracoodii iyo meel uu kariyaadooge ilaa berigi dambe la warbuuj la kixiyo buuchar la geeyo meesha hiliblaha halka arigi weey kaas waa geeli khasirka waa laga qari meel khasir lagu tusay waa loodii waa la tusay arigi waa la tusay geelba jira markaas ay waka xoolii anaguna waa goosanana markaas la iibsado hilibkiyo markaas hilibkii cunay waa aaminti ana aamin marka saasa lagu yeeray markabkii la igu yeeray markabkii aan tagay marka si maankooda Soomaalida waa taqaanay markiiba waxa la qiimay yani markabkaas la socon jiray waayo markabku wuxuu doonayay in experience leh waa oo khibrad leh ana markaas 8 jir baan ahayo laakiin waa naaxado baradhadii markaan cunay xoog baan leeyahay waata markaas la yiri markabka hebel la yiraahdo socon jirtay sanadkaana wad la socon jirtay sheego yani si lagu aqbalo shaqo lagu siiyo meel heblaan ka raacay maxaa dahay title-kii baa la ii qoray waa job interview baa la marinaya waraysiga shaqada sax de maskaxda fariisada wixii baan xafiday iyadoo la gelbinaya waxaan tagnay meeshii laga qori jiray maraakiibta siimaanka laga qori jiray sida sheegay kasaale ninkan aan wadnaado cusub oo siimaan oo dhalinyaro ah haye intii ay la qiimo buuba ii weydii intii aad u sheegtay adigu intii baan ka jawaabay marka waa Soomaali waxa ku halkii hore nimankii marka ii yeerado marka meesha kaaga horeeyay marka intii aan joogay afkii waa bartoode waa fahmaya waa fiicanta waata markabkaas waxaad ii sheegtay inuu ahaa markab xamuulka ee shidaalka qaado waxaa tangar kuwa ooyala shidaalka qaada weyn oo maraakiibta ugu waaweyn booyada camal oo kala marka halkeeba u dhaqaaqay marka shaqadii heshay oo intee dalbaad tagtay marka inta soo dhaqaaqinba meeshii joogno oo nimankii madaxda ahaa waa la sameeyay ay joogaan madaxda ahaa oo dhan baa la soo galo markaas qiiqi iyo beladii iyo jugti iyo saacad
mantagi baa meesla rugay meeshii ninkii lay waday waniga agila hasan baa ka shaqeynay marka ninkii mantagayo war waxa ku dhacay markaas ali yarku cunado wax kala lagu sheegay ilaa rag baa hawsha watay rag baa hawsha watay waa gar waa Soomaali marka Soomaali ma ugu tagtay markabkii markaba 15 baan ugu tagay 14 meelaha markabku shaqaale intee la joogo shaqaaluhu 40 weeye laakiin Soomaalida iyadu waxaanu ka shaqeynaa isku shaqo waxaanu injineerada la shaqeynaa waxaanu ka shaqeynaa boilerada iyo heatka iyo engine roomkaanu ka shaqeynaa intaan soo noqon waxa qaban jirteen Soomaalidu marka wadamadaas aad maraysay wadamada aad tagtay dad ilbaxa oo ilaa xad markab intaas qof ka shaqeynaya 15 kamid ah Soomaali noqdeen maxay ku kasbadeen Soomaalidu dadka kama badnayn yani fursada noocaas oo kala seebaad ku hesheen inaad ilaa xad aad maraakiib ka shaqeysaan oo Soomaalidu waxa weeye watidii British Somaliland noo hayn sax marka berigi dagaaladii sayidkii dagaalkii Daraawiishta iyo markaas watii dagaal ka dhacay markaas cadan baa la yimid dhulka Carabta waada markaana shaqooyin baa laga qabtay markii Daraawiishta burburtay sax marka ragii adu dhulka soo galay ama ragii dagaalkii koowaad galay ee Soomaalida hore ingiriiska u dagaalamay dagaalkii koowaad hore raggaas qurbaha galay marka Soomaaliduna waa indha furantaado de tacliin kala ma aqoon laakiin shaqada iyo sharafta iyo dad ilbax bay ahaayeen waata oo iyaga waxba qorin hadana ilbaxa oo siyaasadda la socda oo wax walba la socda oo maraakibta yaani laga rasbeego oo shaqada dadka la shaqeeyo laga xushmeeyo iyaguna xushmeeya marka wax dhibaato kala ma kulmeen marka Soomaalidu markabka ugu tagtay soo dhaweyn nooceeyo Soomaalinimo ah baad ka dareentay oo wiil yaro hadeerto kale iyagu way fahmayaan inaad shaqo hore markab aqoon inkastoo qoladii markabka lahayd aad u sheegtay qoladii waa soo dhaafay laakiin hadda shaqadii weynad loo yimid waata marka ma lagu gacan qabto waa la gacan qabtay waa la baray waa qasab waa la baraya shaqada hadba nin baa la isku dhaafaya ma ogtahay helo raakixa yarka kala soo tus injinka generatorka soo tus boilayaasha soo tus dhulka dabka dhulka electriga waa khatar adigaaba waa warshad weey warshad adigaaba ku siganaya adigaaba naftaada khatar gelinaysa haddaad garanayso sida wax u shaqeynaya waata markiiba ragii baan ka mid noqday shaqadii qabanaya maakiyeesta ka galay Soomaalinimo u baana jirtay qabiili waxa lama yaqaan Soomaali ha bala afka ku hadlo waa bas you don't know where cadan ka yimid ma siiman hora fara kuwa Djibouti ka yimaado iyo ka cadan ka yimaado iyo Kenya ka yimaado intaas oo dhan waan ugu tagay England oo Soomaaliya oo isku mid Soomaaliya Ethiopia waxaan ku rahaa awdal beel alaale banaadir meel Soomaali joogto waa la joogay marka walaal la waday waa wada walaal weey dadku ma sha Allah wata arinta kale xiisaha lahayd waxa weey intee wadan ba markabkaas u mari jiray markabku wuxuu ka diiwaan gashanaa Britain waxa kadibna marba inta badan caalamka wuxuu marba la bedelay China aanu shaqadu qaadnay China ila China tagteen oo bariga fog ila Beijing badeeda gobolka Beijing ku taalo oo la yiraahdo Manchuria bad ku taalo oo la yiraahdo Kuuriyadana ku qabsan oo la yiraahdo Dalian magaalada Dalian la yiraahdo yaan waxaan u geynay sareenka geynay bari abaar ku dhacday oo marka shidaalka laga shubay baa sareen lagu soo shubay gooyadihii daalku laga shubo tangarka shidaalka marka laga shubo waa la dhaqaa markaas greenka lagu shubaa cuntada baalka lagu shubaa hadhowtana baalka markuu ka dhamaado waa la dhaqaa xoogaa saliid baa lagu shubaa labada jeer laga faa'iideystaa waata wadamada kale aad ima jirteen waxaad sheegtay inaad aad ima jirteen Latin America iyo wadankan Mareykanka laftiisa gaar ahaan Caribbean-kan wadamada la yiraahdo markabku wuxuu ahaa tangar oil tangar waata marka oil tangarku kuma raago magaalada sida ka shaxnada qaada maaha shaxnada kale maaha shaxnada berigii hore markabku bil buu dhignaan jiray iyo ka badan oo de alaab la gurayo oo qofay in leeyo container-dii waxa sama jireen waata marka tangarku isagu waa la buuxinayaa ama saliid ama midhaha haruur baa laga buuxinayaa meel loogu talagal u tagayaa marka alaab ka nuuga baa lagu xiray matooro marka wuxuu qaataa 3 maalmood ugu badnaan hadii qalabka ka nuugay loo hayo hadii loo aqalku shaxnadu diyaar tahay waaga adigu wax
way ka yar buu joogaa intee wadan baa markaa wadamada markaas sida aawadeed wuu socdaa marba meel mar boqolaa matalan ooyo saliidii waan halka dhignay midhihii greenkii doonayo wadan kale baa loo qaaday Japan qaarad kale China waxaan ku waraa Singapore baa lagu dhigaya inta waxaan gormu noqonaya bahlo laga degaya sanadii 8 bilood inagu qaadatay inaan England ku soo noqono oo aad markab dush saarnay markab dushiisa sanad iyo 8 bilood oo markaa maxaa dareentay sanadkii 8 bilood waa marad bad joogtay marad dekad joogtay marna bad waxaad marna dekada intuu dhigayo magaalada gelaysaa wax dhanbaad ka iibsanaysaa waxbaad cunaysaa una fresh aad soo cunaysaa marka waa iska fan weeye inta badda u maraya maahan waxaad nin dalxiis ku jiraan waa dalxiis baa tahay marka anagu Soomaalidu waa dad ilbaxa aynu nahay dalxiis magaaladu dhan baan historygeeda iyo luqadeeda iyo dhaqankeeda aanu qaadan jiray intaanu sharaacno mar aad Caribbean ka timaadeen oo dalkan hadarta Tobago la baxay iyo Trinidad Tobago jasiirada yar ee quruxda badan runtii markaad ii sheegtay baan raadiyay mapkeeda oo anigu horey uma maqalba Tobago yani markii ugu horeysay bay ahayd kolka waxa iiga sheekay qisay yar halkaas ka dhacday laba jasiiradood bay haayeen laba jasiiradood isku darsaday marka waxa jiray nin Soomaali ah oo idila socday oo Quraanka aad u yaqaanay oo dadkaas dad muslimiin ah ku jireen oo idin kala xareen bal arintaas arrin ashaabi leeyahay waaga waxay ku soo Soomaalidu si dalkeeda u jeclay waata ninka waxa la ofargareeyay odayga ah oo loo ballan qaaday iyo sidoo u diiday waa la yaab wax la yaab waata oday darawishtii ragii adu waqtiga dhashado marka adigu 60 jir iyo meelahaas oo dhowr 60 jir buu ahaa quraanka yaqaan oo quraanka luq wanaagsan ku yaqaan quraanka si fiican kitaabka akhrisan markaan anagu iska sheegay quraanka soo akhrisaa yaa xogaa gubtay iyagoo shaqeynaya dab ku qarxayo ninkii baa gubtay oo meeshii wuxuu ku gubtay meeshii markaba dhexdiisa waata marka waa qaadnayo aniga marka ana raacay markaas gacmuhu ka gubtay iyo timahii baa ka gubtay wajiga adu khatar weyn ma gelin dhakhtar baa la dhigay marka meesha iyada islandka Tobago la yiraahdo Trinidad waxa degan Hindi lagu keenay muqaawil 1800kii 1800 oo muslim lahaa waata oo diintii ilaaway muslim wax yar si haysta oo wilba aabihii u akhriyo oo diintii kitaabka aan akhri karin sax ninkii markii la daweeyay oo dhakhtar muslim la daweeyay yaa la yiri xagaad ka timid markaasuu Afrikaanka yimid oo haye wala wareesto haye oo Soomaali baa yiro markaas la yiri Quraanka ma taqa suuyaha markaas si fiican ma taqaan markaas waan aqaan Quraanka markaas la akhri kitaab loo keen markaas daldal waa in luq waan weey oo tajwiidkii ku saara ku coday waata markaas la yiri markabkeena wuu baxay markabka maalinta iyada laba maalmood joogno maalinta sabaxna waa ka furanayba oo asaga waa ka tagnay waata markaas la yiri hadda waa lagu warranyay magaalada gabadha doontid ama laba hadda ama saddex waa lagu siinay muslim baa tahay yaa lagu siinayna waata dadka diinta bar oo Quraanka noo dhigo nala joog culimadii Quraanka dhigo nala joog wax Allah waxa doontan ku afargareena markay arkeen uu negative uu ogolayn wadid yaa wax uu loo fargaray oo leeyahay gabdhaha lagu siinay gabdhaha lagu siinay guri baan ku siinay iska daa mushaare iyo iska daa waxa laga dhigayaa imaamkii islandka oo dhan adigu jasiiradooda hoggaanka diinta ka sheekh ka noqon waata marka uu diiday wuxuu yiri ma jirto marka waxaan u soo noqonay waa naloo keenay markuu biskooday baa diyaarada soo saaray markabka naloo ku keenay marka wuu noo sheekay arintii la kulantay marka ragga iyagii adigu isagii baan ku raacnay oo waxa tiraadeen marka Soomaalina baa jirtay iyo dad jacayl arinta kale qisada waxa weeye kulli waxaan soo daadigi doonaa barnaamijka qaybiisa kale xiisaha badan gaar ahaan waxaan soo daadigi doonaa arintii Cold War-kii ama dagaalkii qaboobay dunida iyo
wixii aad ka haysay tan Mareykanka iyo Vietnam iyo arrimahaas oo ku soo dadga laga arrin karo aad u xiiso badan markii Soomaaliya ama xornimadii la qaatay 60kii horta xagga joogtay adigu anigu England baa joogay markii intaan la qaadanba waxa dhacday sanadkii ba intaan fuulin yaa waxa dhacday preparationkii la bilaabay diyaar garowgii waqooyiga waata maxaa yeelay waqooyi markaa qolada kale 10 sano loo qabtay 10 sano 60kii kaga buuxay Soomaaliya hoosaad waa tii la geliyay waxa daaqili bay haystay 60kii sax waqooyi markaa waxa la ahaa xusbi loo SOS yaa reer waqooyiga markii hore aad u saamayso waa la wadahaa waata laakiin markii qolada loo ballan qaaday xageena Ingiriisku ay haystay waa la kala yeeray maaragtay waa ka maaragtay kala samaystay xusbiya la samaystay sax dadkuna isku ma raacsaneen in la raaco soodka waata oo waxay lahayd it's not practical diyaar mani laakiin markii la gaaray 59kii oo sanad ka hadhay dawladnimadii Southka yaa waqooyigii markaa kacay waata marka badba wax yiraan anagu ka harimayno nimanka reer South anagu koonfurtan raacno soo koonfur baan raacna sax awal dees waashaan wadahayn waata xorriyada ka harimayno waata marka waqooyigiina waa kala jabay adu dad yar oo midadu rubcana dhamayn ba waxa yiraahdeen ma raacay karo oo inaga Ingiriiska meel ina gaarsiinay dawlad fiican oo aynu sugno 10 sanadood iyo halayna si xukumo waata marka waxa halka ka socda waqooyi anagana wuu noogu yimid waan la soconaa oo journalada akhrisan jirteen mise dadka ka imaan jiray I don't know sidii warku ku imaan jiray believe me sida hadeerto aynu helo baynu heli jiray warku noo soo gaari jiray waata marka waa inta xisbiyada waqooyiga la sameeyay waqtigaas la sameeynaya USC iyo SNL markaas la sameeynaya USB صح SOS qaar baa wali haysta laakiin taanu is wada raacday kulligii Soomaaliya oo dhan oo England joogtay yaanu maalin ba xusbi aynu maaragtay shacabkiisii qoladii aanu u shirno marka ila meel baan waxooda wadnaa oo lana bay ku imaanaya lana bay wax ka yimaadeen magaalooyin badan oo siimanadu joogeen waata marka dhalinyaro badan way tagtay sidii aniga ahaa oo nimanaga ilbaxsan oo cadan ka yimid oo magaalooyinka waqooyiga ka tagay oo anigu marka badigo iga ilbaxsan igana weyn raggaas marka shaqeynay markaas hadba magaalada la tagi jiray lagu shiri jiray markaas qoladaas loo camiri jiray مثلا قوليها رير هرجيسا دليرادنا waxay ahayd in la raaco xagga waata oo isku falsafada qoliyo kale waxa la socdeen qoliyo conservative oo pro English oo qolada la andibu hadho wadaniyadu dad aad ku kana sax marka qoliyahaas aanu isku xusbay ahayn oo la shaqeyn jiray kuwan doonayeen la raaco aanu iyagu si leeg bay noo soo raaci jireen waata dabayl baa iska jirtay Soomaaliya dabayl baa jirtay Soomaaliya sax markaas iyadu dabayshii jirtay aanu markab raacay oo wali xurmadii aan qaadan calankii markabkii markaa badda kula galay badda anagu mareen marba dalba tagta dalbar burta markaan Caribbean kan mareen markii noo sheegay in calankii Latinka Latin America markaas aanu bal calanka la qaaday see ku ogaateen dad badda dhex joogteen ma idaacadaad haysateen waxaanu haysanay radio waaweyn oo transistor oo dunida oo dhan qabanaya oo BBC markaa BBC قاهرة راديو وين ولا عربت لهاي راديو قاهرة نعم كوكلو لكسمبورغ ومثل هاي يدو مدوين لكسمبورغ أفكاريس كهلا إذا عاد بدن باشري واتا مركا وان وجن مركي وين لقات إنه قوي قاتي وان وجين قاتي مركي ده وين لسراعي وان وجين برايم مستركي كوسو بحي برسدك كوسو بحينا وان وجين بدت كل حاجاتين وحصل بدنا كوي واتا محضر انتين مركا يا محضر انتين فرحد أنا مركا يدا حدان هري كرينو وان سودو في له إذا كي بدو الأحمر صح بدو الأحمرين واتا ترى سبحان بسيط مركا يدا واتا باصر بوزة شخصية حلين وسودو في له واتا مركا إجلان بقصون نقطين سنة استداد بلاد بين إجلان بقصون نقطين واتا marka
markaasaa la yidhi baasaboorkii ingiriiskana waa haysataa aduu markaa waa haysanaa Waa kii aanu kusoo galnay britiga baan haysanaa Waa British Somaliland waa ta marka waa Soomaalidii waa dawlad waa dawlad waxaa madax dawlad banaan lahaa sanad iyo 6 bilood baa dawlad marka la yahay markaad markabka raacday bariir kadib dawladnimada la haa dawlad waa la qaatay waa ta marka baasaboorkii miyaad waxa la sheegay inaad haa anu keegi waa googay waa ta ninkii ingiriiska baa iga qabtooyay warmaya war jeexjeen waa soo noqon doontaa wadankii waxa tahay resident oo nin British ah tahay ka goyn haye waxa tolo British ma rabo markaasaan wali indhaha kaga dhufata waa ta waa yaani xamaasadda iyo xamaasadda haysa waa ta ragna jeebkiisa ka riitay anigu sakeegi aytaan bagoogayna waan u dhiibay waa ta anigu goyn lahaa iga qabtay uu yiri warkaada saala sameeyay kii Soomaaliga way balansan yahay oo waa balansaday moogta waa ta waa la sameeyay kii Soomaaliga ba dalbata ها بدل لنا marka lana baan joogay oo markii wada qusuliyadii wixii waa la furay ha waa la furay ama maasturka waa joogaa qusuladii waa joogtaa niman baa Soomaaliyeed ahay waa ka shaqaysanaa ayaga markaa weey waa ta oo xariisina in passport Soomaaliya ku qorantay aragtaan passport ajnabi u sideena waa ta marka wadaniyadii waagaas jirtay waxaad kaloo ii sheegtay in intii markabka sheeko kala qosol ahay ninkii madaxa dhinaca farsamada ahaa engineering markabka marka iyada Sri Lanka muslim ahaayo nin Sri Lanka oo muslim arida sheekadaas ya engineer markabka inta la soconay ka engineer waa ta kaligiisa indika oo Sri Lankan madowey oo engineer inta kala waa cadaan iyo Soomaali marka ndagii nebi yiri markabku waa yaa dhoofayo soo noqonayo si war haay markaasaan wax iyagu waa tagayna ku soo noqon soo noqon shaqadiina waa shaqadiina fiican ha marka way isbedelayeen markabtu waa nasanayna marka kale aan raacana hadaan sii joogayno waa ta markaas iyo warwaasad warwadan baad ka timaadeen yaro hadeer Afrika oo hadeer dawlad qaatay istajiye oo fakhriya shaqaad u baahantiin marka waana soo wada shaqeynoo waxa tihiin wiilasheedii oo aad baynu isugu wanaagsanay marka shaqadii ninka abaalood ku lahaydeen wadii sheegay anana waa galadan ku celin jiray cadaan inuu muslim buu Sri Lanka ha galadan ku celin jiray way dhibi jiray ha way dhibi jiray waa xaqiri jiray way xaqiri jiray anagu sagaalada ninkii sana ka sareeyay isaga ka sareeyay waa chief engineer kabtanka isaga kabtanku waa equal way isku awood inna waa navigation inna waa inta kala markabka oo dhan buu ka yahay engineer marka way may maqli jirin marka qolada la shaqeyso anaga injinka iyo yaan risbeegi jirin waa xishmay jirin shaqada ma qabatay markaas iska dhaafaan markaasaan u hanjibi jiray anagu gaalada halkaan kalarka ku dhigi jiray Soomaalidu hawlaha engineerka sax walaadina hadii kale wallahi sakaan ka garaacayna waba garaacna qaar waa garaac dawr aniga ma laakiin rag baa laayay cadaan aawadi ku laayay oo cadaankii laayay gacansa ku yahay marka dawladnimada la qaatay passportkii baad heshay waa soo noqotay waa soo noqotay halka ka bilow